kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aan idinku soo gudbino Elman TV maanta waxa inoo marti ah ciyaaryahan kamid ah xidigaha naadiga isaga ay askan bari doono ku soo dhawaada barnaamijka Elman TV oo ku dhawaada maasanta walaalkii Samir magacaaga oo kooban magacayga oo kooban waa Xamza Xasan Warsame waxay noo siistaa naanisteeda oo dadka badan ay yaqaan Ceeltire goorta aad dhalatay iyo meesha aad ku dhalatay okay waxaan ku dhashay dalka Denmark gaar ahaan caasimadda Copenhagen waxaan dhashay 1967 bishii 6 3deedii kooxda ugu horeysay aad u ciyaartay Xamza kooxda ugu horeysay oo professional ah waxaan u ciyaaray kooxda LLB Genyo laakiin waxa ka horeysay heerar kala duwan sida inaan u dheelay degmada Yakshiid aan kadib u dheelay gobolka Galmudug ma xasuustaa xilliga aad ku soo biirtay naadiga Elman orantii waxa ku soo biiray season-kan ay ugu horeyso aan u dheelay General Daud iyo half season oo horyaalka marka waqtigaas aan ku xasuustaa inay imaaday kulankii ugu horeeyay aad u ciyaartay Elman kulankii ugu horeysay aan ciyaaray waxaan la ciyaaray kooxda MCC waan bedel ku soo galay walow ay naga badiyeen General Daudkii 2-1 naga badiyeen goolkii ugu horeeyay aad u dhalisay kooxda wuxuu yahay dareen gooniya sababtoo tiim cusub marka ay maadad goolka koowaad wax badan ay kaaga duwan yahay wixii hore waxaan ka dhaliyay kooxda Rajo waxaan iga caawiyay walaalkay awal 16 sekunda oo aad u jeclaa la dheelistiisa shakhsi uu dhiirigeliyay inaad koox u ciyaarto ama kubad aad ku soo geerto inaad dheesho shakhsi uu dhiirigeliyay wallahi ma soo koobi karo dad badan laakiin gaar ahaan awowgii Maxamed Cabdulla Farayare oo ah nin weyn oo sportska Soomaaliya laga yaqaano ay ugu dhiirigeliyay inay dhahay hore u socod wax badan aan qabsan kartaa asiga ay ugu dhiirigeliyay ciyaartii ugu adkeed ee aad u ciyaarto kooxda ciyaartii ugu adkeed aan Elman u ciyaaro waa ciyaartii aan gadaal ka soo galay aan u bixin dharaasan ciyaartina lagu marsiiyay 2-0 aan kadibna ka soo kabsanay 3-2 aan ku badin koox lagu taageeraa Xamza adig kooxda taageertaa waxaan taageeraa kooxda Arsenal aad iyo aad waxa kale shaqo ku leeyahay waxaan kaloo taageeraa kooxda Real Madrid kooxda Real Madrid aan taageeraa Spanish taageertaa kooxda Real Madrid aad iyo aad hadaad fursad u hesho inaad u ciyaarto kooxda Real Madrid ma ciyaaraysaa Xamza aad iyo aad waa jeclahay waa heer aan jeclay inaan gaaro haddii ay suurtagal tahay hobbigaaga maxaa waaye maxaa jeceshahay inaad qabsatid hobbigayga wallaahi hadda waxaan jeclahay inaan qabsado inaan wax badan qabsado qarankayga ka soo muuqdo weliba qarankayga guulo badan aan la gaaro noqdo shakhsi dalka dhexdiisa magac weyn ku leh iyo sumcad heerkaaga waxbarasho ku gaarsiiyay heerkii waxbarasho 2016kii waxaan ka baxay iskuul aqoonbile kadib laakiin jaamacad ma gelin jaamacad ma si fiican okay waaya ciyaaryahanka aad ku dayato markii aad maxaa aad garoon aad ka muuqanayso ama meel aad ku ciyaarayso ciyaaryahanka aad ugu jeceshahay aad ku dayato waxaan jeclahay ciyaartooyga Robinho oo aad u taageeri jiray waagi aan yaray ilaa hadda ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa aad u jeclahay waqtigii aan daawanayay horyaalka
horyaalka Soomaaliya ciyaaryahan Mayman oo aan aad u jeclaa ciyaartiisa Hamza dadka qaar waxaa jiraan oo hal ku ciyaara adiga ma laba lugood baad ku ciyaartaa mise hal oo ku ciyaara labadooduba ku ciyaara aad iyo aad Hamza waxaan kala weydiinayaa yaad ugu jeceshahay kooxda markaad dhex joogtid oo inaad la ciyaarto ama aad ka soo hormuuqato aad la xifaaldanto yaad ugu jeceshahay inaad la xifaaldanto kooxda su'aashaas aad u adag tahay wallaahi ma sheegi karo qofaa markaas inaan kasoo horjeesto aan jeclahay waxaan xoogaa isxifaalnaynaa oo aan jeclahay oo iska xanaajinaa kabtankayga kabtan Shiine Afgooye oo aad u jeclaa markaan iska soo horjeedno inaan xoogaa isfoorjeeno kabtan Shiine ugu jeclahay mise koox ayaad u soo ciyaartay Elman intaan imaan waxaa ka horeeyo kaliya kooxda LLB Genyo aan ku soo qaatay 2 sano qurux badan waxaad ii sheegtaa xidiga ugu orodka badan Elman haddii aad leedahay ninkaas waaye waa inaad waxaan jeclahay inaad ii sheegto qiyaasan haddii aan qiyaaso waa ciyaaryahan Maxamed Cusmaan minus sida aan filayo booskad ka dhashaa markii aad garoonka joogto dadku waxay u arkaan inaad number 7 wadato number 7 aad ka dhashaa oo baalka ah number ka dhashaa numberka hadda oo lii idmaday oo macalinka aan u xisaabsanay waa numberka 7 oo garabka walow garabka ay rabtaa noqoto kan undishay kan sataawo labadaba waan dheeli aqaanaa oo labada lugaba waa isku keemid marka laakiin macalinka walow isticmaalo boosas badan sida numberka diishka oo kale oo ay shaqadeeta oo aan dheeli karo waagayga oo gobolka iyo degmada baan diish dheelay marka laakiin numberka lii idmada waa garabka qof walba koox markuu joogo saaxiib uu ku yeeshaa adiga saaxiib ugu dhow aad Elman ku leedahay aan gadinayna ii sheegay wallaahi ma soo koobi karo laakiin markuu uu dhaho saaxiib kugu dhow dad badan asxaab way jiraan laakiin kan kugu dhow markuu lagu dhaho waa ninka mar walba iska warqabtiin haddana kooxda waxaan iska warqabnaa mar walba iska warjirnaa oo ah Bile iyo Nuur oo aad aan isku dhawnaay subaxdana isoo raacno isii raacno geemka haday noqotay isla imaahayno marka nimankaasaan aad isku dhawnaay aan dhihi karaa waa asxaabtaada kooxda Hamza ciyaaryahanada markay garoon ku jiraan qaar baa kaarka jaalaha qaato qaar waxay qaataan roose adiga markii kugu xumaa aad roose qaadato ama markii kugu horeysay aad roose qaadato professional weligay ma qaadan rooso waxaa xasuustaa hadda 3 sano garoonka ku jira kaliya inaan qaato hal jaalo anoo u dheelayo kooxda LLB Genyo waana seasonkii koowaad anagoo bixin kooxda Batroolka saad ugu sheegtay weligaa roos ma qaadan si fiican gabagabadii ayaan soo gaarnay mise koob ayaad Elman la qaaday ama weli Elman gordhow aad soo gurtay saad ugu sheegtay xabsisan ayaad joogtaa weli koob ma la qaaday hadda aad joogtaa may weli koob ma aan qaadin sida caadiga xataa sida ugu soo biiray ciyaarahan professionalka weli koobka ma guulaysan laakiin waxa meeshan u imaaday waxaan rabaa inaan guul badan iyo koob badan inaan qaado insha Allah saasan jeclaa cuntada aad ugu jeceshahay maanta hadii lagu dhaho meel lagu casuumayaa sida hoteelada camal maxaad ugu jeceshahay in lagu casuumo waxaan jeclahay bariiska iyo malayga aad u jeclaa aad iyo aad waqtiga firaaqada maxaad qabataa waxaad barataa training oo sameeysaa maxaad qabataa waqtiga firaaqada waqtiga firaaqada waxaan jeclahay inaan familkay la qaato iyo asxaabta intaan xaafada joogo waqtiga firaaqada aan hayo waxaan jeclahay asxaabteeda inaan la qaato qaraaxaysto baashaalo ma sha Allah Hamza waxaan ku weydiinaa xaaladaada guurka miyaad guursatay mise weli maadan guursan weli single ahay weli ma guursan weli maadan guursan saas si fiican aalada social media qofba waa meel buu ka taageeraa oo meel buu isticmaalaa adiga intaad u badan tahay isticmaashaa wallaahi waa isticmaalaa laakiin hadda dadkii dhalinyarada waxay u bateen meel la yiraahdo TikTok-gaasina xoogaa waa ka shidanahay oo waxa waaye waa xoogaa fiidiyoyaasha waa iska gashtaa
laakiin sideeda kale caadi waxaan Facebook u badana inta ugu badan qof walba markii uu garoonka jiro wuxuu jecel yahay inuu number uu jecel yahay inuu qaato ama uu qof ugu daydo ama maxaa la hayay oo asagu uu jecel yahay adiga numberkeed qaadata oo markaad xiran tahay aad ku qanacsan tahay inaad qaato aad waxaan ku qanacsanahay numberka hadda aan u wato kooxdeeda Elman ee 7 ah wiligeena waa jeclahay numberkaas yaad ugu daytaa numberka aad xiran numberkaas in laga soo gaaro halkaas Cristiano Ronaldo aan aad ugu day jiray kubadiisa asagana kubadiisa aad u jeclahay maxaad fariin u diraysaa taageerayaasha ku taageera adiga iyo kooxda taageera maxaad fariin u diraysaa wala aad u maasan yihiin ayka madaxooda wax walba ku nahay intaan aykana soo gaarsiiyeen waxaan jeclahay iyo dhiirgelinta hadii si wadaan anigana wax badan aan qaban doonaa insha Allah waan ka farxi doonaa